Audio Jungle. Audio Jungle. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد السلام waxaad ku soo dhawaataan koorsigii aan ku baranaynay sidaan u samaysan lahayn website lacag la'aan anaguna wax kood aan qorin. casharkan waa casharkii 14aad waxaana ku qaadanaynaa sida aan domain name free ah u samaysan lahayn. ugu horeyn halkan ayaan waxaan ku qoranaa ciwaankan kadib enter ayaan leenahay. markii halkan aan ciwaanka aan ku soo qornay wuxuuna keenay main page-ka oo website-kan meeshan ayaan waxaan ku qoranaynaa magaca domain name-ka aan u baahannahay. waxaan leenahay website-kiina magaciisa intaan imaano intaan yar aan iska soo goobiyo koobi markaan dhaho kadib inta ayaan imaanaynaa halkan ayaan ku paste gareynaynaa kadib waxaan leenahay check availability. markaan check aan soo dhahno wuxuu noo soo bandhigay inta available ah aan samaysan karno. hadda haddii aad fiirisid waxaa halkan ku diyaarsan in 5 domain name so 5toodaba waa free. in case haddii aad u baahneen domain name-yada halkan idaga muuqdo waxaad imaanaysaa qaybta hoose balse free ma ahan. in domain name ka dirtaan .com waa $8 in waxaad raadi kartaa domain name aad u baahan tahay. hadda soo sheegaya wuxuu soo bandhigay kaliya 20 in show all haddii si dhahdid in maanta oo idil wuxuu soo bandhigaya domain name kala duwan. waxaan rabaa inaan samaysano domain name free ah. waxaan tagaynaa qaybta kore. dadka badanaa waxay faaliyaan domain name-kan tk in sidoo kale ml ayaa ku xigo. intaanoo idilba waa free intoodaba hal mar ayaad dooran kartaa kadib waxaad ku helaysaa si free ah balse haddeertaan waxaan iska dooranaynaa midkan ugu koreeyo oo .tk ah. waxaan leenahay get it now. get it now markaan dhahnay haddeertaan waxaanoo dooran in hal domain haddii aan u baahdo inaan mid kale aan ku darsado sidoo kale waxaan leeyahay get now. waxaanoo dooran 2 domain halkan kore ayuu ku cadaynayaa 5toodaba waad dooran kartaa maadaama ay free yihiin hor ayaa u tahay. haddii aad u baahneen domain name-ka aad dooratay inaad selectiga ka qaadid meeshan minuska ayaad imanaysaa click ayaa leedahay. domain name-ki haddeertaan oo ml-ka ahaa wuu naga heray kaliya waxaanoo dooran .tk kadib waxaan leenahay check out. check out markaan dhahno domain name-ka wuu noo dooran yahay kaliya waxaa halkan ka bedeli kartaa period-ka ama muddada domain name-ka. in haddii aad fiirisid meeshan waxaa ku qoran 3 bil waxa ugu sareeya waxay tahay 12 bilood marka waa hal sano soo halkaas sano ayaan dooranaynaa. in haddeertaan waxaan domain name-kan awood u leenahay inaan isticmaalno muddo hal sano ah wuxuu nagu shaqeyn doonaa qaab free ah. kadib waxaad leedahay continue. continue markaan dhahno wuxuu naga codsanayaa inaan gelino email so emailka ayaan halkan gashanaynaa. waxaan leenahay so sin.training@gmail.com. malaba markii aad gmailka halkan aad ku qoratid verify ayaan leenahay. wuxuu noo sheegay gmailka haddeertaan halkan aan ku qoranay ayaa waxaa loo diray linki so waxaa qasab nagu ah inaan gmailkaas aan soo furno si aan linkigaas aan soo kala garayno. sidoo kale halkan waxaan ku xusun in case linkiga hadda la diray haddii 24 saac in gudahooda aadan verify kusoo dhihin in wuu ka gubanayaa. so waxaan aadaynaa qaybtan waxaan leenahay gmailka noo fur inta aan imaano ama halkan aan ka dooran karnaa. message-kaas ayaan furaynaa. markii aan furno linkigan aan kala garaynaynaa. linkiga markaan kala garayno in wuxuu noo ogolayaa inaan meeshaan details aan ku qorno. magaca company-ga waxaad ka dhigi kartaa waxaad u baahan tahay so aan iskaga qorno in domain name-kiina address-ka waxuna iska gelino. zip code-kana waxaad ka dhigaysaa waxaad u baahan tahay. halkan waxaan ka dooranaa waddanka
kadib intaan waxaan ku qornaynaa telefoonka sidoo kale mar labaad waxaan ku celinaynaa passwordka kadib halkan ayaan tigta saarnaynaa waxaan leenahay complete order okay waxaan ku guuleysanay inaan sameysano domain name-ka si aan u fiirino inuu domain name-ka sameysan yahay in kale waxaan aadaynaa meeshaan service-ka kadib waxaad imanaysaa my domain markaan dhaahno wuxuu kaa codsanayaa inaad mar labaad in account-kaaga aad furatid waxaan furaynaa ciwaankeena kadib login ayaan leenahay hadda haddaad fiirisid waxaa available noo ah domain name-ka dhow aan sameynay haddii aad halkan fiirisid waqtiga la diiwaangeliyey domain name-kan waa 2019 bisha 10aad 25 sidoo kale wuxuu dhici doonaa 2020 bisha 10aad 25 taasoo micnaheedu tahay hal sano ayaan haysanaa haddeertan haddii aan domain name-kan aan isticmaalo ama aan isticmaalin waqtigiisa wuu socon doonaa soo waxaa fiican markii aad domain name aad samaysid inaad iska isticmaashid sababtoo ah muddada halka sano waxay ku xiran tahay waqtiga aad samaysay soo waxaa fiican inaad markaad samaysid aad iska isticmaashid videoga xigan waxaan ku qaadanaynaa sida aan domain name-kan ugu xiran lahayn website-keena cashirkeena halkan ayuu ka eg yahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu